السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaa jirtay in ay ka soo baxeen xogo iyo macluumaad ku saabsan in qaboojiyihii dadka laga dansaday oo rakaabkii xaalad halis ah ku jiraan isla markaana dad la arkay iyagoo isku babinayo baasaboorradoodii iyo qaar dhididku ka daadanayo iyaga oo raba in duulimaadyo ay galaan. dadkaas oo haddaba laga qaatay lacago tiro badan oo xad iyo xuduud aan lahayn, qaarkood lagu sheegay inay yihiin kuwa farsamo, qaarkood lagu sheegay inay yihiin kuwa dokumentiyo, ayaa haddana sida muuqaalada qaar ay muujinayeen la kulmay dhibaatooyin kala duwan iyadoo cadceedu ay mareysay 31 ama qoraxda digrii ahaan ay mareysay 31 digrii, taasoo ah wax aad u kulul. haddaba si indhaha bulshada Soomaaliyeed looga qariyo xogtaasi loo beeniyo ayay wasaaradda gaadiidka iyo duulista ee hawada Soomaaliya soo saartay qoraal waxay ku leedahay oo ay ku sheegtay in qayb ka mid ah garoonka diyaaradaha uu ka kacay dab, iyadoo oo warkaasi qaar ka mid ah dad aan la xiriirin ay sheegeen inaysan wax ka jirin. waxay wasaaraddu ku sheegtay in dabka uu baabi'iyay ama khasaaro u geystay qaybta mukeefyada ama qaboojiyaasha ee garoonka aadan cadde. waxay sawirkan baahisay marka muuqaalo laga helay garoonka iyo dadka rakaabka ah, iyada oo ka hor dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada arintan aysan ka hadlin, wax faahfaahin aysan ka bixin. ha yeeshee dadka qaar waxay leeyihiin arintan waxaa la rabaa in indhaha dadka looga qariyo waxa jiray lagu beeniyo mowduuc arintaasi ku saabsan, isla markaana lagu qanciyo bulshada Soomaaliyeed in wax cilad ah ay jireen. haddaba ma noqon kartaa su'aasha weydiinta mudan wax bulshada Soomaaliyeed ay ku qancaan isla markaana lagu marin habaabin karo warkan wasaaradda ka soo baxay? qaybta hoos noogu reeb muuqaalkana sii gudbay.